iyo senatarada iyo xildhibaanada walaalaheen reer Galmudug oo maantay anagoo ah wafti reer Puntland oo wasiirro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ka kooban aanu shir kula qaadanay Hotel Global koonfurta Gaalkacyo ee Galmudug runtii shirkaas oo aan uga hadalay arrimo aad muhiim ugu ah guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan labada dawladood Galmudug iyo Puntland ee Soomaaliyeed khaasatanna magaalada Gaalkacyo arrimaheedana aanu ka hadalay oo ay labada maamul iyo dadka walaalahaaba ay daris ka yihiin waxaanu si gaar ah halkaan maantay uga wada hadalay oo runtii dhanka Galmudugna saynu wada ognahay walaalkeen wasiir Fiqi oo ah wasiirka amniga iyo mas'uuliyiin kale ay joogeen aanu si gaar uga hadalay arrinta amniga sida la isaga kaashan lahaa la dagaalanka argixisada oo dhibaato xoog leh runtii ku haysa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaanna gobolkan ay labada maamul daris ka yihiin dhibaatooyin ay ka geystaan hadda kuwii ugu dambeeyay ka mid ahayd qaraxii ay ku fuliyeen oo ay ku dileen walaalkeen gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland oo shalay tacsidiisii ama munaasabadii tacsida la isugu wada yimid waxaanu ka hadalay sidii dadka reer Puntland iyo Galmudug ee walaalaha la isugu soo dhaweyn lahaa horey loogu sii wadi lahaa dadaalkii muddada soo socday ee nabadeynta la isugu xiri lahaa bulshada oo la isugu soo dhaweyn lahaa waxaan ka hadalay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen dhinaca maxaa la yiraahdaa hay'adaha dawliga iyo dhismahooda waxaan rajaynaynaa haddii lahayd arrimahaas inay horey u sii socdaan waxa la wixii ku xeeran xoojinta amniga iskaashiga dhinaca la dagaalanka argixisada iyo iskaashiga iyo isku xirka nabadda iyo adkeynta xiriirka bulshadana waxa la wixii kale ku xeeran oo ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto arrimaha kale ku xeeranna inaan insha Allah ka wada shaqeyno waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay shaqo isu bedelaan haddii lahaydmo aan halkaan maanta kaga wada hadalay ayna dadku dareemaan sida ay Galmudug iyo Puntland haddii shalay cadow ka faa'iideysan jiray oo madaxa isu gelin jiray oo Gaalkacyo iyo inta ku xeeran ay noqon jireen meel dagaal in maanta la arko mas'uuliyiinteedina inay garbaha haystaan ilaa madaxweynayaal ilaa wasiirro ilaa gumartoorayaal ilaa meero ilaa iyo bulshadii ay garbaha haystay odayaashii ismadii haddii lahaydna laga shaqeyn doono sidii deegaankan iyo labada maamul deegaankoodana ay u noqon lahayd meel nabada horumarsan labada maamulna ayagoo garbaha haystay ay qayb uga qaadan lahaayeen Soomaaliya inteeda kalena sidii cadowga looga dulqaadi lahaa